laanta xaggeyga ay ka wada dhigeen kulligood ana tashka saareen wala muuqataa xitaa dheeman dadkay ka mid noqotaan ana hadda jir ahaan ma xanuunsani laakiin maadaama uud aan dhali lahay waan xanuunsanahay maalmahan waxa baraha bulshada qabsaday qisada labadan lamaane oo ah lamaane ay nolosha ku midaysay baraha bulshada gaar ahaan aalada TikTok. Sheekada labadan lamaane ayaa ah sheeko cajiib ah, waxayna sheekada ku saabsan tahay wiil lagu magacaabo Carafaad. Carafaad waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo caafimaad qaba misana ka shaqaysta dhulkiisa hooyo ee Soomaaliya, taasoo ahayd halkii uu ku noolaa. Maalin maalmaha kamid ah Carafaad waxa ku dhacay qadar kadib markii ay xabadi ka haleeshay lafdhabarta, taas oo ku keentay Carafaad inuu gabi ahaanba waayo qayb kamid ah lixaadka oo ah labadiisa lugood ilaa uu ka noqday mid aanan socon karin misana sariiryaal ah. wuxuu Carafaad xaaladaas ku jiraba waxa uu ciwaan ka samaystay amaba ka furtay aalada TikTok. ujeedka ciwaanka uu samaystay ayaa ahayd in uu ku madadaasho maadaama uu noqday mid sariiryaal ah. muddo kadib Carafaad ciwaankiisa waxaa ku soo biiray dad aad u fara badan. Carafaad ayaana bilaabay in uu live soo galo oo uu xaaladiisa ugu warbixiyo asxaabta kootidiisa ku xiran. mar walba uu live ka soo furto mareegtiisa TikTok, Carafaad waxa uu ahaa mid ku soo celceliya oo sheega in ay dayaceen qoyskiisa iyo asxaabtii uu lahaa markii uu caafimaadka qabay, haatanna uusan haysan cid caawisa. waxa kale oo la yaabka ku noqotay dadkii live-kiisa daawanayay ayaa ahayd markii uu sheegay isagoo oynaya in saxarada iyo kaadida agtiisa ay yaalaan muddo 7 ah, sidoo kalena aanu haysanin cid ka caawisa cunto karinta amaba u keenta wax uu cuno. isagoo hadalka sii wata ayuu yiri, noloshan adag waan nacay, mar walbana waxaan ku fikiraa in aan isdilo oo aan noloshan silca ah mar uun isdhaafiyo. Dheeman oo kamid ahay dadkii daawanayay live-ka Carafaad ee uu kaga waramayay xaaladiisa nololeed ee uu wajahayo ayaa ka murugootay misana kala diweysay xaaladda nololeed ee Carafaad uu ka waramay, maadaama ay Dheeman ahayd mid naxariis badan. Dheeman waxay ku nooleed wadamada Carabta gaar ahaan dalka Sacuudiga. Dheeman waxay go'aansatay in ay xiriir la samayso Carafaad si ay u caawiso. isbarasho gaaban kadib Dheeman ayaa u sheegtay Carafaad in wixii maanta ka dambeeya aanu keligii ahayn, balse iyadoo ay garab taagan tahay doonaysana inay noloshiisa ku soo biirto wixii ka lumayna intii ay awoodo ay iyadu dib ugu soo celin doonto. wadahadal dheer oo isfaham ku salaysan kadib Carafaad iyo Dheeman waxay wada go'aansadeen in ay nolosha ku midoobaan oo ay isguursadaan. Dheeman waxay iskaga timid dalkii la isla dhacayay shawarmada iyo casiirka oo ay ku nooleed, iyadoona timid Soomaaliya oo ah halka uu ku noolaa sariiryaalkii ay qoyskiisii iyo asxaabtiisiiba ay dayaceen, si ay halkaasi nolol cusub ugula qaybsato Carafaad, sidoo kalena kelinimada ay uga saarto. Dheeman iyo Carafaad markii ay nolosha ku midoobeen wixii ugu horeeyay ay u qabato ayaa ahayd in bulshada Soomaaliyeed ay u weydiisay inay caawiyaan Carafaad oo ay u gadaan wheelchair oo ah gaariga loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba, maadaama Carafaad uu dhibsaday nolosha sariiryaalnimada. Dheeman oo ahayd faraj Ilaahay u soo diray Carafaad waxay u noqotay marwo raaliye ah oo u buuxisay booskii hooyanimo, kii walaalnimo, kii saaxiibtinimo iyo kii xaasnimo. sidoo kale way rogrogi jirtay sidii ilmo yar oo ay dhashay oo kale, iyadoona ka qabtirtay wax kasta oo u baahnaa. cajiib. kadib muddo sanadaha oo ay isqabeen lamaanahan wax awlaad ahna aysan isku dhalin ayaa waxay isla soo duubeen muuqaal ay labadoodu ay ku wada jiraan. inkastoo Carafaad keligiis uu hadlayay, waxa uuna yiri, waxaan u tagnay dhakhtar si aan u ogaano sababta aan ilmo u dhali weynay. waxaana ogaaday inay ciladu tahay dhanka xaaskayga, maadaama aniga aan ahay nin rag ah misana fursad haysta iyadana hadda aysan dhali karin. waxaan rabaa inaan xaas kala guursado sababtoo ah waqti ayaa igu socdaa. markii hore aniga ayaa isku haystay inay cilada dhankayga tahay, laakiin waxaan dib ka ogaaday inay ciladu tahay dhanka xaaskayga, maadaama ilmo hore ay u dhashay lagu qalay qalinkaas oo ku keenay inaanay wax dambe oo ubad ah aanay dhalin. waxaan doonayaa inaan naag kale la guursado, iyadana way iga aqbashay. haddoogu markiisii hore iska daa in uu ku hamiyo inuu guursado misana uu wad dhale qoodha ma isdhaafisa ayuuba islahaa, balse haatan ninkiiba ma ahan oo wuxuuba taagan yahay inaan ilmo dhalaan rabaa. Faaraxo maad joogtid
qushi xaliimooyin badan oo muuqaalkaas daawaday ayaa aad ugu falceliyay waxayna sheegeen in Faaraxan uu bahdil weyn u geystay xaaskiisa oo ahayd qoftii soo garab istaagtay xilli uu u baahnaa garab istaaga iyo inuusan ahaynba qof abaal loo galo misana loo naxariisto uu yahay abaallaawe yeelko xaliimooyinka oo ku doodaya in Faarax Luga Baasto oo idil ay isku mid yihiin kooda lugaha qabaa iyo kooda curyaanka ahba ayaa waxay tusaale nool u soo qaateen carafaadkan meed ahaanta ehelkiisu ay sariirta dusheeda ugu dul tageen iyo hiblaayo hooy urto ninkeedii yacni Mrs. Jigili Xaliimo Kuusay jaanis ha kugu hesho cibaaro adduun leh maahino bini aadamka lagu kala bartaa markaad baahantiyo markaad tahay beestaa